maanta maalin weyn ay wallahi noo tahay maxaa yeelay nin weyn oo qaali ah oo Soomaaliyeed oo hadan dhalinyaro ah Umar Cabduqaadir Artan oo ah World Cup aspirant maxaa la dhihi jiray sheeg nin oo ya aspirant referee aan soo dhaweynaa Soomaali waxa lagu yiraahdo maleenaya kulay wuxuu ka qayb galayaa koobka adduunka sida aan rajaynayno insha Allah taala oo 2026 ka insha Allah taala garsoor doono Umar runtii wuxuu ku soo baxay magaalada Muqdisho asoo yar ilaa ay hadda iskool Djibouti ka soo bilaw ilaa uu ka tago koobka adduunka taariikh dheer waa aan laga sheekay karin laakiin waxaan rabaa 2 point kaliya inaan ku soo koobo insha Allah taala hadii ilaahay raad Umar wuxuu qabtay AFCON wuxuu ahaa garsooray ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee qabto ciyaaraha qaramada qaaradda Afrika garsoore ka horeeyay habeeraha magaalada Soomaaliya hambalyan leenahay annagana waa isu hambalyeynaa sababtoo magaceena ayuu sitaa wuxuu ku santay magac Soomaalnimo ku santay waxaan rabaa marka labada arrimood ciyaartii ugu horeysay oo qabtay oo qaramada qaaradda Afrika oo Tunisia iyo waxa u maleynaa Namibia iyo Tunisia Soomaaliya runtii ciyaartii ugu horeysay ahayd laakiin aragtidiisa dheer judgment-kiisa oo runta oo cadaalad ah physicalkiisa quruxda badan leh iyo adkaysiga iyo malacda qofka soo horjeeda maadaama uu ahay wuxuu ku qaatay iyadoo ay ku dhamaatay daqiiqadii ugu dambeeyay kulli goolka la leeyahay maleynaya wuxuu ku qaatay ciyaartii ugu horeysay inuu noqdo ciyaar garsoore hore u socdo oo runtii gaari karo ilaa ay finalka inuu qabto koobka qaramada qaaradda Afrika runtii wuu xaqiijiyay maxaa yeelay kulankii ee ciyaareen oo taariikhda galay Soomaalida sida aadka ay u xasuusto Algeria iyo Mauritania oo la dhigi jiray wuxuu ciyaartay ciyaartoy la dhigi jiray Algeria wala saartan Soomaali runtii ciyaartaas waxay noqotay ciyaartii rasmiga ahayd oo uu kaga gudbay jiilka yare soo koraayo oo uu gudbay refereeyada qiimaha badan ee qaaradda Afrika maanta wuxuu taagan yahay koobka adduunka in maaragtay World Cup-ka 2026 North America dhacaayo dadka loo diyaariyay inuu ka qayb galo wuxuu maanta halkan u yimid inaan u duceeyno walaalkeen wiilkeena adeerku una insha Allah taala diilaro meesha waxa jooga garsoorayaashii isaga ka horeeyay lixdamaadkii garsoorayaashii toddobaatamaadkii dadka ugu dambeeyay oo kamid yahay Saalax Umar Abuukar oo runtii anaga garsoorayaashan waxay ka fiicnaan wax walba ka fiicnaan sababtoo Saalax arkaysan wuxuu ahay ilaa ay 3 final oo bariga bartamaha Afrika inuu qabto maleynaya waxay garsoorayaashan Soomaaliya garsoore la isku dilay runtii waxaan rabaa markii hadalka inaan badiyo ma rabo qof kasta way ka dhagsan tahay Umar Artan in kastoo aqoonta ay isku wada yar tahay haddana maanta uu dhex taagan yahay